Waxaa jirtay sagaaro uur leh. Markay soo dhawaatay foosheeda, waxay aaday meel fog oo u dhow webiga. Markii ay dhali rabtay, cirku wuxuu bilaabay onkod iyo hilaac ama danab oo ku dhacday keynta ayaa sababtay dab weyn. Waxay fiirisay dhinaceeda bidix, waxayna aragtay nin ugaarsanayo, kaasoo raba inuu ku soo tuuro fallaar. Waxay fiirisay dhinaceeda midig, waxay aragtay libaax aad u gaajaysan oo raba inuu ku soo boodo. Sagaaradii waxay noqotay inuu cuno libaaxa, ama in ay ku gubato dabka, ama in ay ku xabqato ama ku hanfato webiga. Dhibaatada meel ay ooga baxdo ma leh. Maxay samaynee? Miyay iska cararee ayadoo daciif ah? Miyay isdhiibi doontaa? Waxay go'aansatay in ay samayso waxa ay awoodo samayntooda. Waxay xoogga saartay foosheeda. Haddaba maxaa dhacay? Hilaacii ayaa indhaha tiray ninkii ugaarsadaha ahaa. Fallaartii uu la beegsanayay sagaarada ayaa gacantiisa ka baxday oo dhaaftay sagaarada, waxayna ku dhacday libaaxii gaajaysanaa. Isla markiiba waxaa soo da'ay roob xooggan. Dabkii keenta ayuuna damiyay. Sagaaradii si nabad ayay ku dhashay. Cashirka aan ka baranay sheekadan: waxaa jiro daqiiqado noloshaada ka mid ah oo ay kugu hareeraysan yihiin dhinac walba, kuwaasoo ay ka mid yihiin fikradaha rajo-xumada leh, carruurtoo kugu xumaato, ciriiri iyo walwal fara badan, shahwadaada oo kuu horseedayso dembi, arrimo adag aadan horay go'aan ka qaadan karin, dhibaatooyin. Ugu dambayn, ku dadaal waxaad awoodo samayntooda. U daa inta hartayna Allaha xukuma nolosha aadanaha oo dhan, kaasoo ugu naxariis badan hooyada cunugeeda. Ha ka quusan rajada Alle, hana ka quusan rumaynta Alle. Alle agtiisa waxaa ahaaday dhibaato kasto xalkeeda. Xusuusnow shay muhiim ah: ha dhihin Rabbiyow dhib weyn ayaa i haysto, laakiin ku dheh dhibaatooyinkaaga, waxaan leeyahay Rabbi weyn.